marka hore aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dallada horseed dhalinyarada mutacalimiinta ah ee maanta taageeradoodii iyo cududoodii xisbiga kulmiye ku soo xoojiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oonu u soo dhoweynaynaa waana mahadsan yihiin aballa waa ugu haynaa qodobka labaad kulmiye wixii laga odhan lahaa waa la yidhi hal waxaan ka odhanayaa guddoomiyaha horseed hadalkii halkan uga jeediyey halla waxaan ka odhanayaa xaaladda dhallinyarada halla waxaan ka odhanayaa arrimaha muqdisho ka socda waa ta koowaade guddoomiyaha dallada horseed waxa uu tilmaamay waxa ay ka doonayaan dawladda soo socota ee xisbiga kulmiye iyo caynka u ekaanayso ayuu aad u sifeeyey waxaan leeyahay taa waxaad ku helaysaan keliya horseed iyo inta badana gobollada kale ah iyo somalilan oo dhan oo ra'yiga ah soo dhigteen ee laysku wada raacsan yahay ee caalamku isku raacsan yahay qof waliba u howlgalo ma aha hawl qof quri qaban karo ama xilkeeda uu qaadi karo gaar ahaan horseed waxaan uga doonayaa maadaama iyagu ay soo jeedeen ra'yigaa inay noqdaan qolada ugu horraysa ee u howlgelaysa inay helaan dawlad nooca ay soo sifeeyeen ah ee ku dagaalgelaysa anna waxaan idin ballan qaadaya inaan kula howlgalo arrintaa ta labaad dhallinyarada maanta dad badan oo dhallinyarada ka mida weyniyo jabaan qaar way tahriibaan dad badanna walaac baa ku dhaca waxay ka warwaraan shaqola'aan iyo faqri iyo dhibaato way jiraan dhibaatooyin somalilan ina hor taagan ka gaboobay iyo ka xooggee dhallinyarada ah iyo ka carruurtaaba adduunkana inta lagu nool yahay ma qabiyo baxo mar walba dhibaato way taagan tahay mar walba dhibaatada dadka xooggee nool baa xalliya markaa dhallinyaradu marka ay eegaan duruufaha adadag ee naga soo horjeeda ay koow ka tahay faqriga ama saboolnimadu ee uu laba ka yahay shaqola'aanta qoys saboolnimadu keentay ee ay ka mid tahay in dawladdu sidii ay doonayeen ama sida caalamka kale ugu eegayaan aanay gaadhsiisnayn waxaanu leedahay waxaan arrintaa ka leeyahay waxa wanaagsan inay dhinaca kalena eegaan ee bositifeka ah ee mustaqbalkeenna iyo dalkeennu maanta leeyahay haddii dalkeennu faqiir yahay hadday cimiladii isbeddeshay oo xoolihii abaarilaynayso oo ay abaartii soo noqnoqonayso haddii dadkii magaalooyinkii uu ku soo qulqulayo oo magaaladii laga yimid oo dadkii wax soo saaraya reer miyiga ahaa ee magaalada ku noolna ay magaaladii naf moodayaan magaaladiina ay biyuhuba ku yar yihiin waxaad eegtaa somalilan waxay ka dal ahaan waxa weeye 138,000 oo kilomitir isku wareega waxay ka weyn tahay England oo adduunka dhan u qaxo oo 130 kilomitir isku wareega England waa 130 kilomitir isku wareega Somalilandna 8 ku may dheertahay caalamka oo dhamina England buu qaxa inta badanna iyadu ma laha cadceed ee baraf baa inta badan yaala maxay saas u dhacday miyaan Somaliland gaari karin in loo soo qaxo oo dadkoodu sida kuwa England u horumariyeen meena u horumarin karin Somaliland waxay leedahay bad 840 kilomitir ku taal oo ah halka caalamka ugu mudan xagga dhaqaalaha xagga dagaalka iyo dhinac wada istiraatiijiyada reer siibaynu ku leenahay 840 kilomitir oo ah boqolkiiba 56 maraakiibta caalamka ee ku jeeb buushirada adduunku meesha ay marto oo adduunka oo dhan u baahan yahay ma wayna lahayn adduunka iyo istiraatiijiyada hayra dhigay inaynu ka faa'iido oo waxa ay samaysay Dubai oo aan wada inta looga badahaysan oo aan geed lahayn oo aan macdan lahayn oo xool lahayn maanta adduunka oo dhan isugu tagay mina aqligaas oo kale yari karin Somaliland waxa loo waa inta macdan adduunka jirta bay ku leedahay hadday tahay macdan dhagaxa iyo hadday tahay carbohydrates haddaba waxaanu leenahay xoolaha nool oo waxa la hubaa
geela adduunka ku nool baa lagu qiyaasaa ilaa 9 milyan waxa la yiraahdaa inta u badan Soomaaliya ku nool yahay oo dhan markay isku jirtay inta u badan Soomaaliland baa leh geela adduunka ugu badan waxaan leenahay xoolihii noolaa waxaan leenahay dhul beereedkii waxaan leenahay xoogii maxay naga maqan maxaynu u taariibaynaa maxaynu u walwalaynaa maxaa faqriga inoo haya waa su'aal u baahan horseed iyo mutacalimiinta kale maasreedka iyo PhD-gu intay maskaxdooda shiilaan inaanu isu keeno inuu garanno maxaynu u soconaa ma aha inaynu yara jabno ma aha inaynu qaxno ma aha inaynu warwarro ma aha inaynu aqlada hoos ka soo xidhanno caalamku uu soo wadmaray waxan cid walba dadkiisa ka saaray waxaan ku balamaynaa ardayda dhalinyarada 30 jir iyo wixii ka yar mutacalimiinta sanad walba qarni baa dhaamiya daadaas dhaamsa caalamka oo dhan haddaad eegto ilaa asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalinyaro ahay ku wax qabtay ma wahayna weyno cirrale oo daadeedana oo markuu daa joogo iska baqanayo wax laga baqayo maaha dhalinyaro wax qabata fikirkii horumarkii waxa quraanusina waa dardaaran iyo tusaale iyo taasaa lagu jabay ka bayda oo taa ku socda horseeda waxay noo balana inaanu fikradaha wadaagno inoo balan ma aynu qabyaaladii meel soo wadaagna idinkii ugu kala